kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 3 jiha waxa ay ka galeen magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ku sugnaayeen Ahlus Sunna wal Jamaaca. Dagaal u dhaxay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlus Sunna ayaa waxa uu subaxnimadii hore saaki ka qarxay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Dagaalka waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ah. ciidanka dowladda Soomaaliya oo kaashanay kuwa maamulka Galmudug ayaa la wareegay gacan ku haynta saldhigga magaalada Guriceel iyo xaafadaha ku teedsan oo muddooyinkii la soo dhaafay ka arrimayeen maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca. ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa inta badan ciidamadoodu waxay isku geeyeen hal xaafad oo kamid ah magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud sida aan xogta ku helayno. dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidanka dowladda oo kaashanay kuwa maamulka Galmudug iyo Ahlus Sunna ayaa waxa uu ka socdaa qayb kamid ah magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. dadka deegaanka magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegeen inay arkayeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo gudaha u soo galay magaaladaasi. gudoomiyaha magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in si nabadgelyo xalay saqdi dhexe ay u soo galeen xaafado kamid ah magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud kadibna subaxnimadii hore saaki uu bilowday dagaalka. wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Guriceel naga soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid kacsan isla markaana wali uu dagaalku u socdo. dadkii ku noolaa magaalada Guriceel ayaa inta badan waxa ay isaga barakaceen magaaladaasi maadaama ay ka cabsi qabeen in lagu dul dagaalamo. xalay dadkii ugu badnaa ayaa waxa ay ka barakaceen xaafadaha magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud iyagoona aaday deegaanada fog ee gobolka Galgaduud si ay uga baaqsadaan dagaaladaas iyo waxyeeladooda. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka baxay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ee ku sii jeeday magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu dagaal ku qabsaday inta u dhaxaysa Guriceel iyo sidoo kale Matabaan gaar ahaan bar control oo ay ku sugnaayeen ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaaca. ciidamada uu dagaalka qabsaday ayaa waxa la sheegay inay ka baxeen degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo ay qayb ka ahaayeen ciidanka guutada shanaad qayb 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay iminka naga soo gaaray magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in magaaladu ay u qaybsan tahay laba qayb oo qayb ay maamulaan ciidanka dowladda halka qaybta kalena ay isugu geeyeen ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa magaaladaasi. kowdii bishan ay ciidanka hubeysan Ahlus Sunna wal Jamaaca waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaana ay maamulayeen muddo 23 cisho ah. waxyaabihii ku soo koray dagaalka ka socda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaa si dhow ula socon doontaan telefishinka Hiiraaweyn haddii uu